السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام داود يا الكسود هذا موقع كله عصبيه فيديو كله قروح بدن فضلا هذا تمر كور جنا كسب وقولنا أنا سبسكرايب أسرتها أترككم تاجنا كعم بلال كعفرتها وحي رأي جا وقروح بدن كومنت جنوس وقرتها أدي هذا ما سنته سما أنت تترك أركيست واي ما أنت حفلة دي إذا قلنا جمنت أي طلبات تبغى بسا أكتوبر ومالين النبأ عن عاديين ومالين هوي والبو يا أبا والبويلكو ما أنت قلنا جمنا فرحت وقتها روانتي ما أنت نوحى كسيف عن أديكو نقول بدنا نلقاتي إن وعليا بنتين وجهي وح سمو جواي أما فيديو أنا عليا وفرواي تحسن ما ذكر على قلنا سويت هذه فمل كمان تلجوا وقتي اللي قاعدين هاي فمل كان غير كاميرا ما أحن هذا كاميرا قاعد مع لوق قل ما أديك واحد صدوم ما فرحتان أنا قصله نو قال لي ده مفاتيد ورطاس وحاكم معان الله يعزك مسؤولين مرت شرف قروح بدن كامر ما أنا ور ما أنت عاد ما الله ما فريق رسن جامعة دي وحوا كفان هم فانتين رسول هذا الله سحبتي فضل هذا مرلبات هذا أنا كعسبتها هي سبسكرايب صار لا من جنبلك أفورت لكن أسرت لايك وحنا إذا إن يوتيوب وقارسي دد بدن هذا ما سنتين ما نروح هذا كنا يكون بديو صوبتي تها فرحتي هذا وحاربة إني يعني دتك أنا يسلي سو إرجلي ما أنت aan adig idin tuso hadda maanta idin tus lahayn yaa kala tusahay walaalayaalow ii sheeg magaala tusaan afkii aan aqoon adig aan tusaa luqadeeda aad taqaaniin war soo dhawaada in leeyahay soo dhawaada ladan qiimaha weyn ku fadhida maanta inoo dhacaysa qalinjabinta ardayda saddexda group tiradooduna ay dhan tahay si heer sare ayaa loo soo agaasimay munaasabadan oo ahayd mid ay ku aflaxeen arday wax ka baratay jaamacadda Hormuud oo kamid ah jaamacadaha faca weyn ee ku yaala dalka munaasabada waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda bahda waxbarashada qaybahooda kala duwan waalidiin iyo marti sharaf kale injineer Liibaan Cali Afrax ayaa ugu horreyn soo dhaweeyay dhammaan ka qaybgalayaasha waxaana uu sharaxay tirada ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Hormuud iyo kuliyadaha ay dhameeyeen xafladan qiimaha weyn ku fadhida maanta inoo dhacaysa qalinjabinta ardayda saddexda group tiradooduna ay dhan tahay 470 arday waxaan uga mahad celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda una timid dhiirigelinta ardayda iyo waalidiinta gacanta weyn ka soo geystay waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa jaamacaddu markii ay fiirisay shuruudihii looga baahnaa ardayda halkaa fadhida in ay go'aansatay in ay guddoonsiiso shahaadooyin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wadaan howlahooda waxbarashada ardayda qaar ka mid ah inaysan waxba ku soo celin waalidkii intaas la soo kifaaxay waxaan leenahay ardayahay haddaad suuqa gasheen oo wax gacantiina wax qabatay gadaalaha loo fiiriyo hooyo iyo aabe iyo walaalo iyo cid kastoo gacan ku soo siisay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaa u qaban kartid marka baabuur ha iska gadanin iska guursanin hore ha u soconin ayadoo waalidkaa ku soo fiirinaayo wax alle wixii lagu soo bixiyey waa inaad ku soo celisaa gurigii iyo aabbii hooyo iyo adoon mustaqbalkaaga loobaynin taasna waa waxyaabaha aan aragnay waalidiinta qaar ka cabudaan ma badno laakiin haddana inaan ku baraarujinno ayaan rabnaa in hooyo iyo aabbo iyo walaalo iyo dadkoo dhan gadaal in loo fiiriyo aan horey isaga soconin waagii jaamacadda aan dhigan jiray waxa cuntada chiefka iyo lacagta pocket money-ga la yiraahdo dhamaanba dawladda ayaa bixin jirtay waxaan rabnaa abaalkii noola galay waqtigaas hadda inaan soo gudno oo dhalinyarada soo baxaysa jaamacadaha ka soo baxaya in ay noqdaan kuwa hormuudka ka ah oo ka shaqeynaya warshadaas si barta waa warshad casri ah waxay ku shaqeynaysaa waa electronics
qaar ka mid a hobbil ay ku shaqaynayaan waa dareemaysaa lacagta meesha aan gelinay intay dhan tahay marka ardada soo socota iyo kuwa hadda joogaba ha u sii tabaabuushaystaan in hawshaasi ay u diyaargaroobaan. waxaan rabaa ardayda inaan idhaahdo sidoo kale waxaan rabaa inaan ayagan u hambaliyeeyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda oo ayagana juhdi iyo dadaal adag ku bixiyey inaad soo gaartaan halka aad maanta taagan tihiin. ardayda waxaan rabaa inaan dadka qaanta qalin jibinaya ardaynimadu qayb baa soo dhammaatay aan rabaa inaan idhaahdo waxbarashadu ama tacliintu ma dhammaato. wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xabsade iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo gabagabada munaasabadda hadalka qaatay ayaa kula dardaarmay ardayda inay ugu faa'iideeyaan cilmiga ay barteen bulshada Soomaaliyeed. ardayda Soomaalida wax baratay waxaa la naga rabaa inaan ka duwanaano kuweena kale oo wax baran micno ma sameynayso inaad degree haysatid oo master haysatid laakiin dhaqankii dadkii ka horeeyay ama ku tuulada ahaa ama ku deegaanka ahaa ku dhaqmayeen inaad wali ku dhaqantid micno ma sameynayso inaad degree aad haysatid laakiin firi ku dirig intaad fariisato aad wali aaminsan tahay qabyaaladii iyo qurunkii dalkeena burburiyay micno ma sameynayso inaad meel fariisato adoo wax bartay ee wali aad ku mashquusho waxyaabo aan shaqadaada ahayn ama micno markaas ku sameyn waqtigaaga badanna aad ku dhimiso. waxaa marka muhiim ah inaad wax barateen waxaan ka fahmi karnaa isbeddelka ku dhaca beedda aan ku noolnahay. waxaa ka jirta dalka shaqo la'aan baa ka jirta jaamacadii arday badan ay soo saarayaan dowladdii dadkii waxay wadaan dowladda shaqa dowladday ka wada raadsanaa dowladda inay shaqo siisay rabaan dowladdiina culayskeeda xagga amnigaa haysta ma awooddo inay shaqaalo badan qaadato maxaa talaa markaan taladaan wada waxay tahay si loo yareeyo baagamundada ama loo yareeyo maaragtay shaqo la'aanta waxaan soo jeedna jaamacadaha ay ka soo baxaan ardayda jaamacad ay ku fikirto ardayda ka soo baxaysa intay jaamacad ka bixin inay u samayso shaqo abuur si ardaydii ugu dhacaan banaanka banaanka aysan u joogin oo maalintii ka soo baxaan jaamacadda ogaadaan meesha u shaqo tegayaan taa waxay kaalmo u tahay dowladda jirta iyo ummadda si loogu yaray dhibka maanta markaa fiiriso qolo baaris cilmi baaris samaysa ayaa waxay soo saarteen dadka bajaajleyda ama dhalinyarada bajaajka wadda inay 40% yihiin dad ka soo baxay jaamacado oo shaqo la'aan ku dhacday. qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda ayaa nala wadaagay dareenkooda. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Liibaan Yaasin Maxamuud waxaa ka qalin jabiyay jaamacadda aad ku facaweyn Hormuud University Department of Engineering Department of Telecommunication Engineering aad ugu faraxsanahay waqti dheer ina maanta inoo soo dhamaaday waqti badan aan sugayn in badan alxamdulillaah farxadeeda lama soo koobi karo waxaa halkaan aad ugu mahad celinayaa waalidiinteeda waxaa aad ugu mahad celinayaa walaalihii mar walba garabkayga taagnaa faamiligayga aad iyo aad maanta dareenkayga waxaa waaye lama soo koobi karo. hadoo dhan allah ayay u sugnaatay oo maanta ii suurageliyey inaan qaato qayb ka mid ah farxadeedii dunida waan ku faraxsanahay maanta inaan ka qalin jabiyo jaamacadda Hormuud qaybteeda engineerinka department waxaan ka qalin jabiyey telecommunication engineering waxaan sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa dhammaan maamulka jaamacadda Hormuud iyo macallimiintii aniga waxay soo bartay waxaan kaloo mahad ballaaran u jeedinayaa waalidiinteedii iyo asxaabteedii iyo macallimiinteedii dhammaantood igu soo garab istaagay inaan maanta heerkan soo gaaro. dhammaan waxaan hambaliyeynayaa ardayda dhammaan ka qalin jabinayso jaamacadda Hormuud khaasadan kuliyadeeda economic ardaydeeda BIBF2 maan dareenkeeda aad u kacsan yahay ma la soo koobi karo farxadeeda. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalka daawateen sababtu ay tahay maanta waxaasoo dhan waxaa sabab u ah jaamacadda Hormuud sababtu ay tahay ayada wax soo saartay tayada ayadana gelisay waalidiin badan oo na soo dhiirigeliyeen wax naga soo bixiyeen maanta waa maalintii farxi laayeen oo yacni indhahooda ku arki laayeen ubadkooda aflahay aad iyo aad u mahadsantihiin waan rajeedoonaa kuwa aniga daawan doon ayagana maalintoodana saas inay yacni waalidiintooda u farxi doonaan sida aniga maanta noogula farxay oo kale si kasta hata waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka daawateen insha Allah dhammaantiin waxaan rajeynaa farxad iyo bashbash barwaaqayn cimri dheer ciyaar suban waxaan noo balanaa muuqaalkan insha Allah bye bye nabadino.